Salaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wacyo idinkaga imaanaya istuudiyaha aanu ku leenahay Garowe wararka aan idin hayana waxa kamid ah bulshada Garowe oo ka cabanaya dhalinyaro xilliyada habeenkii ku furta hubka noocyadiisa kala duwan musharaxiinta guddoonka baarlamaanka Galmudug waxa laga guddoomay araajidooda guddiga doorashooyinka Puntland waxa ay uga jawaabeen bulshada Garowe oo su'aalo ka weydiisay habka ay Puntland u gaarsiin karaan nidaam qof walba codayn karo wararka caalamka ee aan idin hayana waxa kamid ah Shiinaha iyo dalkaasi Mareykanka oo heshiis ganacsi kala saxiixday iyo waliba xaaladda Suudaan oo xilligan degan kadib qalalaasihii shalay sidoo kale waxa daawan doontaan wararkii caalamka iyo waliba asaboolkii sinsinta ku gadi jiray suuqyada waaweyn oo iminka ka mid noqday hogaamiyayaasha ugu caansan caalamka warbixin xiiso badan ayaan idinka hayaa wararkaas iyo kuwa kaleba waan idin hayaa soo dhawaada mar kale shirkadda Somtel waxay ugu bishaareynaysaa macaamiisheeda inay tahay si adeegyada 2G, 3G iyo adeegga 4G isla markaasna ay ku soo kordhisay adeegga 4G Plus kuwaas oo dhammaantoodba ka haqabtiri doona baahida internet waana internetka ugu xawaaro sareeya guud ahaan dalka Soomaaliya wacan mar kale daawadayaal ku soo dhawaada warkiyo faahfaahsan waxaana warka idin soo jeedinaysaa anigoo Maymuun Cabdirisaaq bulshada ku nool magaalada Garowe ayaa waxay ka cabanayaan dhalinyaro xilliyada habeenkii ku furta hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo magaalada Garowe ay ka mid tahay magaalooyinka ugu ammaanka badan Soomaaliya haddana bulshada ku nool waxay ka cabanayaan amni darro warbixin amuurtaasi ku saabsan waxa inoo haysa wariyaheena Nasrakiin Maxamed Cali bulshada ku nool Garowe ayaa ka cabanaya dhalinyaro hubka noocyadiisa kala duwan kaga furta dadweynaha wixii ay wataan maalinta cad iyo habeenkiiba maamo asli xirsi oo kamid ah dadweynaha ku nool Garowe ayaa sheegtay in cashuurta laga qaado dadweynaha in aan waxba loogu qaban dadkuna aanay si amni ah ku dhexmari karin magaalada waxaan dacwo ka nahay dhalinyarada soo kacday anaga agtayada iridayada habeen iyo maalin niman soo shaqo tagayo oo kiyaalo xun gadanayo oo saacado xun gadanayo ba habeen iyo maalin ugu dilaan oo hortayada aan dhig ka dhaqnaa oo dhig bax magaciiseeya waxa way wadanka loo soo jeeso waxa laga hadii kale to hadhow la islaayo oo faraha la isla galana yay eedi imaanin inay hebel toorey ku dhiftay inay hebel gabdhaha la leynayo waa la dhashay wiilal baa la dhashay dawladdu indhaha iska tuurin cashuur baa dadka laga qaadaa oo lacag baa inta laga guraya oo dakhli bixiyaa leeyahay wax lagu qabtana lama hayo waa soo kaaji weeyay arrintu waa noo bixi weeyay oo banaan waa la aad waay amniga waxa laga qabto hadii kale tana hala soo baaleeyo hala islaayo Radwaan Jaamac oo ah dhibane dhaawac loo geystay maalinnimadii shalay xilli ay iskool ka timi telefoonkiina laga qaaday ayaa ka waramaysa dhibaatada loo geystay iskoolka toban tilaabo waxaan dhammayn iimuun jirin xitaa dhalinyaraha fulanaya baa igu soo baxay si tacaddi leh bay ila dhaqmeen tooreyna gacan bay ila dhufteen inkastoo dhalinyarada sanadkan waxba laga qabaneen dowladda ima garanayaan waxay mashquulsan yihiin gabdhihii yaryarka hadda taagan teleefonkooda waxaa moodaa inay ayagu la gateen ila hadda lahaayeen oo dhiib teleefonkay dhiilayeen anaa bas ku dhijin waayo nafteydan ka jeclaa teleefonkooda si ma soo laakiin se ayagaan ila hadna xijaabkii dhaay ugu duubeen teleefon imayso weydiin toorada markii hore u dhufteen ka bacdi isagoo ku hayo rubada ugu shub baan ugu isleegay markaas uu teleefonka ku dhacay laakiin afar nin bay ahaayeen gabar baa ila socotay gabadhii ila socotay xitaa way dileen jug bay gaarsiiyeen mustayada dhaawac muuqda ay soo dhufaan dhalinyaradan way isgaranayaan in dadka dhalana way garanayaan waxa fiican in magaaladan laga qabto ay booliisku heegan u noqdaan in dhalinyarada dadka dhibaateynaya dadku isku mid ah dhalinyarada badankood waa dad fiican laakiin bar waxa ku jira ummadaas ilaahay dhibaysa oo islaamka aysan ka baxsanayn taasna uma fiicna deegaanka qaar ka mid ah dadweynaha oo aanu barxadda kula kulanay ayaa arinta ka waramaya habeenkii
garaacdo magaalada mari karin marka kasta oo aad magaalada martidahay kaasoo baxaya nidatoriya ula wata weyn yar waa isku mid yihiin marka ay kasoo galeen odayaasha waaweynaa laftirkooda ay soo qaadanayaan wiilasha hadda la qaata iska afjira martida nimanka waaweynaa ula uga bixi daba ku qabanaya oo aan amaan keenay dhanka kale taliska ciidanka qaybta iyo saldhigga Garowe oo aan xarumahooda ugu tagnay ayaa arrintan inay ka hadlaan ka gaabsaday Nasrakiid Maxamed Cali Wacyi TV Garowe. musharaxiinta guddoonka baarlamaanka Galmudug ayaa maanta araajidoodii waxa ka guddoomay baarlamaanka cusub ee maamulka Galmudug warbixin amuurtaasi ku saabsan waxay noo diyaarisay wariyaheena Nimca Darajo. guddiga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta ka guddoomay musharaxiinta guddoonka baarlamaanka labaad ee araajidoodii taariikh nololeedkooda guddiga ayaa waxa ay araajidoodii taariikh nololeedkooda kala wareegay xildhibaan Maxamed Nuur Gacal xildhibaan Cabdinaasir Aadan Cusmaan Cabdulaahi Axmed Culisow oo isku soo sharaxay xilka guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug guddiga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa shalay oo Talaado ahayd waxa ay soo saareen shuruudaha laga doonayo musharaxiinta u taagan qabashada xilka guddoonka baarlamaanka Galmudug Nimca Maxamed Axmed Nimca Darajo Wacyi TV Garowe. guddiga doorashooyinka Puntland oo habeennimadii xalay la kulmay bulshada rayidka ah ee Garowe ayaa wax laga weydiiyay qaabka ay Puntland u gaarsiin karaan nidaam hal qof iyo hal cod ah ama nidaam qof waliba codayn karo waxana ay uga jawaabeen su'aalahaasi warbixin amuurtaasi ku saabsan waxa inoo diyaariyay wariyaheena Yaxye Macalin. hay-adda bulshada rayidka ayaa bilowday kulamo ay ku wada hadalsiinayso laamaha kala gedisan ee dowladda iyo dadweynaha waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala gedisan ee bulshada ujeedka kulamadan ayaa ahaa in ay bulshadu su'aalo ku weydiiyaan dhammaan hay-adaha dawliga ah guddoomiyaha Bunsa ayaa sharaxaya ujeedada kulamadan iyo sida ay u socon doonaan waxaana leeyahay madashan ujeedkeedu wuxuu ahaa kaliya inaynu arrimaheena gudaha Puntland inaynu ka wada hadalno oo ah inaynu isa saxno isdoosino iyo arrinka ugu soo horeeyo ah guddiga doorashooyinka oo maanta martino ah oo runta aan oran karo guddiyada hore ka fursad badan yihiin waxna heleen jaanisyo ay maanta haystaan oo ah inay maanta ay noqoto guddiga ugu horeeyay ee sanadka ugu horeeyay dhawaaqdo haysta fursado badan oo ay ka mid yihiin fursad commitmentiga dawladda aad diyaar u ah aan isleenahay wax badan ee bulshadu qaban karta anagoo dhamaanteen waxaan isleenahay inaynu garab istaagno haddana aynu aragno bal waxa ay fikradahooda iyo intay marayaan hadda shaqeynayeen meesha marayaan ka bacdina aan eegno maxaynu garab istaagi karnaa maxaan qaban karnaa ayagana aan weydiino su'aalo badan oo ku saabsan waxyaabaha ay hadda ay marayaan aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan isleeyahay inay noqonto madashan ay ku xigi doonto madasha ah wasaaradda caafimaadka inay iman doonto waxbarashada inay iman doonto maaliyadda inay iman doonto inay noqon doonto meel aynu iskula xisaabtanno iswareysano isku dhaliilno ogaano khaldaadkeena iyo saxdeena aad u mahadsantihiin assalamu calaykum warahmatullahi kulankan oo ahaa kii labaad waxaa marti ku ahaa guddiga doorashooyinka Puntland guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Guleed Saalax Barre ayaa ka jawaabay su'aalo kala gedisan oo ay dadweynuhu weydiiyeen in iska kaashano haduu ilaahay yiraahdo diaspora iyo qofka marka baasaboorka ajnabiga ah wata marka yaani su'aalaha qaybtaas ku faahfaahin adigu wixii shuruudaha kugu qoran oo meesha kugu qoran waxaan ahayn laga ma raba adiga dhulka maqan oo walaal uu sheegay anaga waxana loo doortay inaan sagaalka gobol ee Puntland aanu ka qabano doorashada u diyaarino wax halaala waxay u baahnaayeen aanuna gaarsiin haduu ilaahay idmo xukuumadda iyo golayaasha kala dawladda laga rabaa difaaca wadanka iyo xoreyntiisa iyo maaragtay soo xiristiisa marka anaga meel walba la soo difaaco la soo xiro sanduuqii waa wadana waa gaarsiinayna haduu ilaahay yiraahdo lacagta
lacagtu awl waa badnaydba oo guddiga naga horeeya aad u khafiifiyo asxaan badan sameeyey marka lacagta aan value badan ma laha laakiin waa wax muujinaya qofkan ama dadkan inay wax ka go'an tahay inay maaragtay aysan ka ahayn wax uun iska soo tijaabiya maxkamadda qorshahay ku jirtaa in maaragtay qorshahan soo bandhignay ka mid tahay baarlamaankiina hadda xubnaha kala jooga waxaan ku rajo weynahay hadduu lahayd in sanadkan gudihiisaba kala fadhiga u horeeya xildhibaanada ay golaha wakiilada in maaragtay lagu dhammaystiri doono marka iyaduna qorshahay ku jirtaa marka haddaad akhrisaan buugga qorshaha ama jadwalka kulli way ka mid tahay maaragtay tallaabooyin inkastoo anagu aanaan samaynta maxkamadda aanaan mas-uul ka ahayn laakiin inaan u qareeno oo markaa golayaashii dowladda ee samayn lahaa aanu ku dabagalno hadduu ilahaydmo dhanka kalena khubro iyo aqoon-yahano ayaa kusoo jeediyey waxyaabahan suuragalka ah ee ay xukuumaddu qaban karto iyo waxyaabaha shacabka looga baahan yahay yaxye xasan macalin wararka telefishinka caalamiga ee wacyi magaalada Garowe haatanna ku soo dhawaada daawadayaal wararkii caalamka xaaladda dalka Suudaan ayaa iminka degan kadib qalalaas Soomaalinimadii shalay ka dhacay qalalaasahaasi oo dhexmaray ciidanka dawladda iyo waliba ciidamo taabacsan madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray warkaas iyo waliba warka dalka Shiinaha iyo Mareykanka oo heshiisyo kala saxiixday waxay noo eegaysaa wariyaheena Suudi Cawiif dowladda waddanka Suudaan ayaa sheegtay inay dib u furtay hawada dalkaas iyo garoonka diyaaradaha ee Khartoum kadib shaqaaqadii shalay caasimadda dalka ku dhex martay ciidanka dawladda iyo askar daacad u ahaa madaxweynihii xilka laga tuuray madaxa golaha dowladda Suudaan General Cabdifataax Al-Burhaani ayaa sheegay in laba askari la dilay xilli ciidanka dawladdu ay isku dayeen inay xaaladda gacanta dawladda ku soo celiyaan wararku waxay sheegayaan in hadda la kala diray sirdoonka Suudaan waxaana ciidamada gadooday markii dambe la sheegay inay tagaan xaafadda Gafuuri ee bariga Khartoum kadib markii lagu heshiiyay inay isdhiibaan General Maxamed Hamdan oo sarkaal sare oo ka tirsan golaha talada Suudaan haya ayaa madaxii hore ee sirdoonka Saalax Goosh ku eedeeyay inuu ka dambeeyay qalalaasihii ka dhacay waddankaas wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay in ciidamo gadoosan ay isku gadaameen dhismo u dhow garoonka diyaaradaha Suudaan sidoo kale AFP ayaa sheegtay in 5 qof ay ku dhaawacmeen qalalaasihii shalay ka dhacay Khartoum wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in ciidanka dawladdu ay la wareegeen dhammaan dhismayaashii ay markii hore isku gadaameen ciidankii ka tirsanaa sirdoonka ee gadooday labada dal ee ugu dhaqaalaha xoogan caalamka Mareykanka iyo Shiinaha ayaa maanta oo Arbaca kala saxiixin doona heshiis ganacsi iyadoo ay jirto $100 bilyan oo canshuur kordhin ah oo labada dhinac isugu jawaabeen haddana heshiiska maanta qayb kama noqon doonto khafiifinta tacriifta labada dhinac ay duldhigeen badeecadaha ay isku dhoofiyeen canshuur kordhinta ayaa sideeda sii ahaan doonta ilaa laga gaaro doorashada madaxtinimo Mareykanka ee bisha November madaxweyne Trump kula tartami doona musharax ka imaan doona xisbiga dimuqraadiga is-ariga koowaad heshiiska labada wadan ayaa waxa ugu weyn in Shiinaha uu muddo kooban iibsado miraha iyo wax soo saarka ka yimaada Mareykanka faafahinta kale ee heshiiska ayaa soo bixi doonta marka saraakiisha labada dhinac maanta ay ku saxiixdaan aqalka cad ee magaalada Washington inaad guulaysato iyo inaad guuldareysato waa mid ku xiran marka hore inaad leedahay hami iyo hiraal fog qofna ma doorto in uu ku noolaado nolol hoose balse nolosha ayaa waxay leedahay wajiyo kala duwan oo hadba ku qaabilaysa dadweynaha saboolkii sinsinta iyo kackaca ku iibin jiray suuqyada waaweyn ee dalka Turkiga kuma uusan qanacsanayn inuu sii ahaado ama inuu sii iibiyo sinsinta iyo waliba kackaca inkastoo dadweynuhu ay arkayeen daciifnimada iyo waliba duruufaha isaga ka muuqata haddana waxaa gudihiisa ku noolaa riyooyin qurux badan oo isaga dhexdiisa ku ololayay madaxweyne Erdogan waa saboolkaasi sanado ka hor ku iibin jiray gudaha dalka Turkiga ama suuqyada Turkiga sinsin iyo waliba kackac kaasi oo mar walba jeclaa in uu ganacsigiisa horumar ka gaaro isla markaasina uu noloshiisa ku maareeyo balse higsigiisu waa uu ka fogaa halka uu isagu markaasi joogay
iminka waxa uu ka mid noqday hogaamiyayaasha ugu caansan ama hogaamiyayaasha ugu saameynta badan qarnigan 21aad ama dhamaadka 10 sano. haatan xubintii ciyaaraha daawadayaal geeskayga waxa taagan Sacuud Cawiif nooga warbixiso suuqa kala iibsiga iyo waliba kulamada ugu dambeeya ee wada dheelayaan kooxaha Manchester iyo waliba Wolves. Maymuun aad baa u mahadsantahay kulanka toddobaadkan jira waxa garanaysaa kamida waa kulanka Man United ayaa martigelin doonta kooxda Wolves kulan ka tirsan FA Cup oo ku celis ah iyagoo barbara ay galeen kulankii lugtii hore ee tartanka. Man United ayaa isha waxay ku haysaa kulanka la wada sugay ee Liverpool ee dhinaca Premier League iyagoo ciyaaryahanno badan oo muhiim u ah ay markaas u nasinayso kulanka Axadda. kulanka ayaa wuxuu soo geli doonaa 15:45 xilliga geeska Afrika ee caawa garoonka Old Trafford waana kulan markaasi FA Cup ah. dhinaca kale suuqa kala iibsiga Maymuun ee kooxda Tottenham ayaa iyaduna waxay sameysay saxiixii ugu horeeyay ee kooxda markaasi iyagoo markaan la yimid Gedson Fernandes oo xiran doona lambarka 30aad kadib markii uu dhameystiray heshiiska inuu ku biiro kooxda White Hart Lane ka dhasha. waa Gedson Fernandes ayaa noqonaya markaasi saxiixii ugu horeeyay kooxda Tottenham ay sameysay waana xidig khadka dhexe ka ciyaara isagoo ay kala soo wareegeen dhinaca kooxda Benfica. Gedson Fernandes ayaa qalinka ku duugay heshiis 2 sano iyadoo kooxda Spurs ay dooqahaan u haysato in ay markaasi heshiiska 2 sano marka uu dhameysto in ay si toos ah ula wareegaan oo ka mid noqdo laacibiinta kooxda joogta. kabtanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Jordan Henderson ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in markaasi ay sharaf u tahay in loo magacaabo laacibkii ugu wanaagsanaa ee England sanadkii tagay 2019. Jordan Henderson ayaa loo caleema saaray abaalmarinta laacibka Premier League ugu wanaagsan isagoo tartankan ku garaacay laacibiinta waa laacibka markaasi kooxda Manchester Sterling sidoo kale Harry Kane kadib markii uu ka caawiyay xulka qarankiisa England inay u soo baxaan koobka qaramada Yurub ee Euro 2020 waxayna sidoo kale booska saddexaad kaga dhameysteen koobka UEFA Nations League. qodobadaas ayaa ugu waaweynaa dhinaca ciyaaraha Maymuun. warkii oo aad kala socoteen Wacyi TV daawadayaal waa naga intaas inta aan war kale ku kulmi doono nabadgelyo.